Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu waaweyn ee suuqa saaka oo hadaan oo kale aad ka daawataan tv-ga Gold TV channel ee bartiisa YouTube-ka. waxyaabaha ugu weyn maanta waxaa ka mid ah Bellingham, Rusian, ciyaarahan Jota, Villas iyo Icardi ayaana ka mid ah. Nadiga Liverpool ayaa markaan doonaysa ciyaaraha Birmingham City ee u ciyaara 16 sano jirkan kaasoo qadka dhex uga ciyaara kooxda lagu magacaabo Birmingham City. John Bellingham waxayna ku doonaysaa 30 milyan ayayna ku rabtaa, laakiin waxa aad u doonaysa kooxda Manchester United. Liverpoolna dagaal adag ayay la gali doontaa kooxda Manchester United. Saturday Sunday ayaana sheekadaasi daawacaysa. sheekooyinka ugu weyn waxaa ka mid ah Manchester City ayaana markaan rabta inay ka dhaqaaqdo ama u dhaqaaqdo tartanka European ama tartanka Champions League maadaama 2 sano laga ganaxo, waxayna rabtaa in racfaan weyn ay ka qaadato arrinkaasi. Mirror ayaana sheekada fahansan. waxyaabaha kale ugu weyn waxaa ka mid ah Manchester City ayaana markaan tartan adag la gali doontaa kooxda kubadda cagta Real Madrid, waxayna rabtaa ciyaaraanka Napoli qadka dhex ugu ciyaara Isbaanishka u dhashay Fabian Ruiz kaas oo 80 milyan lagu qiimeeyay. Manchester City-na dagaal adag ayay la gali doontaa kooxda kubadda cagta Real Madrid. 3 sano jirkan oo dhashay dalka Isbaanishka waxaa aad u baadigoobaysa kooxaha Manchester City iyo Real Madrid. Express ayana sheekadaas daawacaysa. Leicester City waxay markaan rabtaa ciyaaraanka Celtic u ciyaara ninka lagu magacaabo Gom Georgian kaas oo lagu qiimeynayo adduun 25 milyan. Leicester jirkan ayana kooxda dabacooyinka waxay aad u baadigoobaysaa san ayaana sheekadaas qoraysa. Manchester United ayaa diyaar u ah in 50 milyan ku qori garasho ciyaaraanka Wolves weerarka ugu ciyaara oo dhashay dalka Portugal Diego Jota kaas oo Old Trafford loogu gacan hadina xil ciyaareed Sweden ayuuna imaan karaya leeyahay. Leicester jirka Express ayaana sheekadaas qoray. RB Leipzig ciyaaraanka Timo Werner ee weerarka ugu ciyaara waxaa aad u baadigoobaysa kooxda Liverpool. Horena wuxuu sheegay inuu Liverpool uu hayo macalinka ugu wanaagsan adduunyada Jurgen Klopp ayuu ku tilmaamay best coach in the world ayuu ku tilmaamay, taasoo u fududeey karta kooxda kubadda cagta Liverpool inay hesho adeega ciyaarahanka lagu magacaabo Timo Werner. wararka ugu weyn suuqa ayay ahaayeen. haddii aan dhageystayaasha ama daawadayaasha u sii raacin kulamada maanta laga ciyaari doono horyaalada kala duwan, waxaa horyaalka Premier League kulmihiisba Arsenal Everton 1 ayay wada ciyaari doonaan. Wolverhampton Wanderers iyo kooxda Norwich City-na waxay wada ciyaari doonaan 11 Manchester United Watford ayaa wada ciyaari doona. kulamadaasi ayaana maanta aad u xiisaha badan ay yihiin. sidoo kale Spanish Liga oo ciyaar Atletico Madrid iyo Villarreal ayaana ugu weyn maanta waxyaabaha la ciyaar 5 saac ayay wada ciyaari doonaan. habeenka xalay Real Madrid waa laga adkaaday 1 gool iyo Levante ayaana ka adkaatay. horyaalada kale haddii aan Serie A dalka Talyaanigana Inter Milan caawa Sampdoria kulankaas wuu baaqday. daawadayaal intaas ayaan kusoo gabinayna wararkii ugu weyn suuqa aad ka dhageysaneyseen ama ka daawanayseen channelka Gold TV. tan iyo kulanka asxaabi nabadgelyo.